السلام عليكم كسودو جنالك عبد الله بلديني maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijkeeni talaado technology oo ah barnaamij talaado walba soo gala kaas oo aan ku falanqeyno technology-ga iyo halka ay marayso maanta barnaamijkeena waxaan ka soo qaadanaynaa sooyaalka computer-ka computer-rada iyo qalabka electronics-ka maanta waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nolosha aadamaha iyagoo saameyn ku leh shay kasta laga soo bilaabo isgaarsiinta ilaa daawada iyo isbitaalada inkastoo maanta loo yaqaan computer-rada ikhtiraacida electronic iyo adeegsiga xisaabiye ayadoo la adeegsanayo qalab koronto ku shaqeeya balse hadaan taariikhda dib ugu noqono computerkii ugu horeeyay ayaa waxaa la dhisay taariikhda markay ahayd 1822 waxaana dhisay Charles Babbage oo ahaa xisaabiye Ingiriiska u dhashay kaas oo loo adeegsan jiray kaliya in wax lagu xisaabiyo 1936 Alan Turing ayaa soo bandhigay Universal Machine kaasoo awooday inuu xisaabiyo wax kasta markii dambena isaga loogu magac daray computerkaas Universal Machine oo markii dambe loo bixiyay Turing Machine ayaa sal u ahaa fikradda computerada casriga ah ee maanta kadib waxaan u soo gudubnay daacada cusub ee computerada ee loo yaqaan computerada casriga ah ama modern computers sanadkii 1938 ciidamada badda ee Mareykanka ayaa horumariyay electromechanical computers kuwaas oo loo isticmaali jiray ama ay ku isticmaali jireen gujisyada badda hoosteeda qoolsa daacada cusub ee computerada ama modern computerska ayaa waxaan u kala qaadaynaa ilaa 5 jil first generation vacuum tube computers 1940 to 1956 jiilka koobaad ee computerada oo loo yaqaan vacuum tube computers waxay isticmaali jireen vacuum tubes ama tuubooyin banaan kuwaas ay wax ku keydin jireen halka maanta aan ka isticmaalno logic circuits vacuum tube computers waxay ahaayeen kuwa aad u waaweyn halka computer ayaa wuxuu qaadan jiray hal qol ama ka badan sidoo kale waxay ahaayeen kuwa aad qaali u ah oo maysan awoodeyn dadka caadiga inay iibsadaan waxay isticmaali jireen dawladaha oo kaliya second generation transistors 1956 to 1963 transistor waxaa lagu ikhtiraacay Bell Laboratory sanadkii 1947 balse kuma aysan dhex faafin computerada ilaa dhamaadkii kontameeyadii transistorada ayaa noqday jiilka labaad ee computerada waxay meesha ka saareen jiilkii iyaga ka horeeyay ee vacuum tube computerska iyaga oo noqday kuwo ka yar ka dhaqso badan ka qiimo jaban iyo waliba ka tamar isticmaal yar sidoo kale transistoradii ayaa waxay noqdeen jiilkii ugu horeeyay ee lagu isticmaalo assembly languages iyo programming language third generation computers integrated circuit 1964 to 1971 horumarinta integrated circuit waxaa ka dhalatay jiilka saddexaad ee computerada transistorada waxaa la dhex dhigi jiray silicon chip loo yaqaan semiconductor balse jiilka saddexaad ee computerada waxay isticmaalayeen monitoro iyo keyboardo kuwaas oo isku xirayeen operating system oo awood u siiyay in computerka hal mar laga wada kiciyo application kala duwan sidoo kale jiilka saddexaad ee computerada waxay ahaayeen kuwii ugu horeeyay ee isticmaalaan bulshada caadiga sida ganacsatada fourth generation microprocessors jiilka afraad ee computerada microprocessors waxay ahaayeen laga soo bilaabo 1971 till present day microprocessorska ayaa waxa isugu geeyeen kumanaan ama malaayiin transistor ah hal jiil gudihiisa wixii ay jiilka koobaad ee computerada ku qaadatay inay qol dhan buuxiyaan ayaa maanta la isugu keenay shay yar oo aad gacanta ku qaban kartid 1971 Intel ayaa soo saartay processorkeedii koobaad 4004 chip 1981 IBM ayaa soo saartay computerkii ugu horeeyay ee guryaha lagu isticmaalo 1984 shirkadda Apple ayaa soo saartay
computerkeeda Macintosh. Microprocessoradu ama processoradu waxay suuro galiyeen in la hormariyo ama la sameeyo computerada loo yaqaano personal computers iyo laptops, 5th generation computers, artificial intelligence. jiilka shanaad ee computerada waxay ku saleysan yihiin aqliga gacan ku samayska ah ama artificial intelligence. welina waa la hormarinayaa. waxyaabaha aan ka isticmaalno maanta artificial intelligence-ga waxaa kamid ah oo aad loo yaqaana voice recognition, oo ah in computerka aqoonsado codkaaga sida Google Assistant oo kale. waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda horumarinta lagu hayo ee artificial intelligence-ga ah waxa ugu waaweyn quantum computation iyo nanotechnology, kuwaas oo bedeli doona habka computerka aan u isticmaalno maanta sanadada soo socda. muuqaalkan wuxuu ahaa mid xiiso badan diyaarintiisa, adin waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday. si aad u hesho muuqaalo kan oo kale ah oo soo gali doono talaado walba, fadlan ku soo biir channelka. haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan saar muuqaalka like, asxaabtaadana la wadaag. aad baad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan. muuqaalkeena intaas uu ku egyahay. inta aan ku kulmayno muuqaalka kan xiga waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum.